نعم. جزاه الله خيرا. شيخنا سائلكم وحليه هي شيخ قف جاد كشقية بايا أفرية أفركا محارم با صون كيغانا وح نقصان أما سو غاريا. روحا جادك كشقية أما قادك كشقية طبعا شقدي سوى حاران هرت وحو كشقي سنة يو وماندوري isaga yimidka khamrada ka ganacsaday waa isku mid haduusan qaadkuba sii darnayn shariicada rabbi waa isku xugum nin khamro ka ganacsada haduu ku afuriyo khamradiisii wixii ka soo baxay ma ku afuraysa ma Soomaali baynu nahayo khamrada waynu kala fognahay waaba gaal baan dhahnaa ninka khamrada لكن قادك هو إنه يقولك التسين تانا الجهل يا قندرة كينيسة الشرع واحد يقولك لك التسين الملا سيدا صدرات روحك كسب كيسوء هاي وقادية هاي أما السيجارية هاي أما الربية هاي وميلها حاران تا كسب كيسو كسو قلو روحها سي حوليه سوى حاران وبالتالي اللي قلوا معاملون كرو lagama qaadan karo afurkiisa lama cuni karo hadiyadiisa lama qaadan karo sooma marka aan noqonin 100 sano waqti ku afur yeena kugu dhahay Allahumma hadi xaraanta soo gasha haday xalaali ku dhax jirto oo midalan meel kale wax ka soo galaan buu leeyahay masaadir kale inka meel ka soo galaan baa jira xoolo kale oo badan oo xalaal u leeyahay markaas oo kale hadaad xalaal miiranayso waa ku fiican tahay inaad saga tagto laakiin markaas oo kale waa xaraan lama dhihi karo waxa dhici karta inaad xoolihii intii xalaasheed ay ku jirtaa dhici karto sababtoo culimadu waxay dhahaan haday xoolihiisu xalaal u badan yihiin xaraanta yartay ku jirta markaasi اعتبار ما له ولا لا معاملون بشرط إن وح مركا كقاضنيسا أينن أهين وآذن أوجين إني تهي قيبتي حاران تهي يعني أما ما وجد بيلك السوتشيدو محلاشي ومحاران تبا أما حلاشي إني تهي بعد أكتهي مركا والله معاملون كريسا حاكى لتوجد رمضان إن لقى صريبه روحا كأفريا أما حوليه سقاضنا يقاتك كصوبحي أما حارانتك كصوبحي هدو مسكين meel kale iyo uusan haysanin wax kale haysan asaga waa loo ogolay sababtu maxay tahay laana miskiinku xoolahan meesha uu ku hayo ninkan odayga miskiinkaaba iska wada laba baab xoolihiisii sababtu waxa weey haduu toobad keena had oo inay yiraahdo warqaadkii waan ka toobad keenay sigaarkii waa ikan xoolahayga hal loo taliyo intaan ka qaadno baan masaakiinta siin lahayn soo saasma marka miskiinku isaga waa cuni karaa masaakiintu meelaha lagu bixiyo kamid tahay masaalixda caamka baa iskale yani danaha guud ee muslimiinta xoolaha noocaas oo kale iskale masaakiintuna waa kamid marka haduu miskiin yahay meel kalena uusan haysanin isagu wax weeyaan ha ku afuro haduu helana ka qaato wuxuu ka helo laakiin haduusan miskiin ahayn maya lagama afuri karo xoolihiisana lama qaadan Allahu a'lam Allahu khayran sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay waxaan ku soomay wadan dadkiisu yahay 90% gaalo awradooduna ay banaanka taalo hadaba indhahaygu waxay ku dhacayaan awradooda marka soonkayga ajirkiisa wax ma u dhimaya arrinkaas wax kasta oo xaraan ah oo xubnahaagu sameeyaan soonkaaga wax u dhimaysa ishaadu xaraanta ay daawanayso طبعا ajirkii soonkaaga ka go'anta carabkaagu dambiga uu ku hadlayo iyo wuxuu sameeyo waxay ka go'an tahay soonkaaga gacmahaaga iyo lugahaaga iyo xubnahaagu wixii ay sameeyaan ajirkaaga ka go'an tahay intay doonay hadhanaato wadan gaalan ku dhaxnoolahay dadkuna waa wada qaqaawan yihiin
طيب عذر دار مفقوسين إذا اسكداوت يا ما هذا أنت كرانك هاجا إيش الله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن مؤمنين ترقي الضمر بقال له حليه هالله شيء وهلا جارسيو هنا عندها اللابان marka indhaha laab inta tabarta dadaal talabaad weeyaan nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiiskii Ali ibn Abi Talib fiirada ugu horeysa iskale fiirada ugu horeysa dhagta hore iskale lagu qori maayo Allahumma inaadun yaani ku sii macaansatood ku sii wada meesheeda waa laakiin marka ugu horeysa isha kaaga dhacdo taa iyada la qori maayo iskale amma talabaad malihid waa korkaaga iyo wixii ka dambeeyay marka dadaal intii tabartaada insha Allah ta'ala wallahu a'lam shakhsiyaadkana wuxuu leeyahay sheekh quraanka waxaan ku akhriyay qiraa'ada Amr ayaan ku bartay kuna akhriyaa mar walbana waxaan ku akhriyaa qiraa'adaas xafsaha iyo amarkana meel ayay ku kala duwan yihiin midee ee fiican buu midka ee fiican quraanka qiraa'adka mutawaatirka ay quraanku ku sugan yahay bidaad ku akhridaba waa tii kala waa dhamaantood way sugan yihiin quraankana waa lagu akhrin karaa midii aad ku akhridana ajirkeeda waad helaysaa tii kale bay la mid tahay wax fadli ah oo hadda u kala dhaxeeyay ma uu jiro waxa uu muhiim midda aad ku akhrinayso inaad itqaaniso inaad sugto oo aadan galab ahayn yaani dadka qaar ba waxay ku leeyihiin khaasatan macallimiinteennii hore muxuu ahay amran akhrinayaa buu leeyahay xafsihi iyo amrihi iyo waxbuu isku dhaxqasay marka inaad lagu isku dhaxqasto lama ogola laana wixii meelay ku kala gedisnaanayaan laakiin haddaad midaad itqaaniso akhri haddaadan itqaanininin amraha xafsaha misxafka ku qoran akhri markaas adoo xakalo la heli karaa amraha laftiisa muxuu ahay masaaxif baa jirta masaaxiftiisa hadda waa soo baxay waa la heli karaa marka dhimale labada kaad akhridaba ajirku waa isku mid insha Allah wallahu a'lam jazakallahu khairan sheekh saa'ilku wuxuu leeyahay aabahay baa soonka ka hor xanuunsaday xanuunka dhiig kar weeye soonkii kadibna uu dhintay miyirkiisuna waa tagtagayay marka maxaan bixin oo lagu yeelanayaa ruuxu hadduu ramadaankii ugu soo galo xanuun ugu soo galo ramadaan oo dhan xanuunsanayay isagoon caafimaadina sida uu ku geeriyoodo wax soona laguma laha wax fidyana lagama bixinayo lianna laguma yeelaninba laa yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma buusan awoodinba mar hadduusan awoodin bimaana fariidadaasi laguma laha haddii iyadu meesha ka baxdo wixii bedeli lahaa oo fidye ana laguma laha Allah u naxariiso laakiin ruuxa wax lagu leeyahay laga soomi ama fidye laga bixin waa ruux ramadaankii xanuun uga tagay xanuun markuu uga tagayna jaanisuu ku qalleeyo helay oo caafimaaday oo qallayn waay kaas waa lagu yeeshay markaa waa lagu leeyahay طيب haddii lagu yeeshay isagoo lagu leeyahay uu dhintay waa dayn waa in laga gudo xadiidkii nabiga ku fadhiyay sallallahu alayhi wasallam xadiisu Aisha fi sahihayn rasuulku sallallahu alayhi wasallam man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyyu ruuxi dhinta isagoo soon lagu leeyahay ruuxa qaraabadiisa ka soomaysa marka waa laga soomi ala ra'yi oo culimada qaar kamida ay qabaan waa xadiidkana ay u daliishanayaan qaarna soonka nadarkay ku khaasiyaan sida Imam Ahmad iyo qeyrkii haddii laga soomi waayana marka waxay culimada qaar kood leeyihiin fidya laga bixinayo raashin waase goorma waa ruuxi xanuun uga tagay soonku xanuunkiina ka roonaaday jaanisu ku qalleeyo helay qallayn waay ama hadduu ku geeriyoodo xanuunkii uusan kaba kicinba
jaanis qallana uusan gaadhinba helinba marka waxba laguma laha sida ay qabaan culimo fara badan waana sida aad moodo dilada inay waafaqsan tahay way xoog badan tahay wallahu a'lam sheekhana wuxuu leeyahay saailkan sheekh qof ayaa wuxuu ku nool yahay meel islaamka ku yar yahay wuxuu soo gataa hilib digaag ciddii gowracdayna lama yaqaano marka sheekhow hilibkaas ma la cuni karaa waxay ku xidhan tahay hilibka gowraciisa ama digaag ha noqdo ama xoolaha ha noqdeen waxay ku xidhan tahay meesha aad joogto xoolaha ama digaaga gowracooda ma in la gowracay u badan tahay mise inaan la gowracin laabudda macluumada inaad hesho waa meesha aad joogto hadday u badan tahay inaan la gowracin oo la ceejiyo ama luqunta la maroojiyo ama mishiinba ay jarto hadday sidaa u badan tahay meesha aad joogto asalku waxa weeye hilbuhu waa xaaraan markaa keliya waxaa laga soo reebiyo xalaal kuu noqonaya waxaad ogaato uun in dariiqo sharci lagu gowracay oo muxuu ahaayey ay ku caddaato haalibku hadduu yahay inaan la gowracin haalibku waa xaaraan iskama cuni kartid haddii meesha aad joogto sida haalibkii u badan tahay xoolaha la gowraco digaagaha la gowraco gowrac sharciga uu ka jirana markaa haalibkaasaad cuskanaysaayo wixii aad aragto waad iska cuni bismillaahi baad dhihi waadna iska cuni marka meeshaad joogtay ku xidhan tahay digaagun la iskama iibsan karo wax kastoo muxuu ahaay la iskama qaadan karayo meeshay ku xidhan tahay weliba waxay u baahan tahay in masalada aada looga taxadaro wayaan adduunkii waaba qasmayba adduunkii waa qasmay yacni ma aqaan inaad la socoteen maalmo dhoweyd kenya maxkamad baaba waxay fasaxdayba in hilibka dameeraha la cuno ma la socotaan hilibkii dameeraha in la cuno oo waaba la qalahayaa kawaanaaba hadda loo sameeyey markii horena qarsoodi baaban ku cunaynayba ilaahay amarkii intaasoo goor baa la qabtay dameero lasoo qalay oo kawaanada yaalla haddana waxa weeye tiin barihii bay maxkamad ugu dhufato waxaba la yidhi waaba la cuni kara waxaan ku arkahayay masar waa beled muslima masar waxaan ku arkahayay maalin dhaweyd waxaa la qabtay beer dhan oo dameeraha lagu koriyo kadibna lasoo qalo oo suuqa la keeno dadka la cunsiiyo si qarsoodi ah marka adduunkani waa adduun iimaanku ka tago fasaadsane hilib iyo markay timaado aada loo taxadaro wallahu a'lam jazakallahu khayran sheekhana saayidkan wuxuu leeyahay sheekh dadka qaar markay ducaysanayaan wejigay masaxdaan maxay ka dhigan tahay marka la ducaysto in gacmaha kor loo taago marka la ducaysanayo waa sunno يعني waxa weeyaan inuu gacmaha ruuxu sidaas yiraahdo nabigeena sallallahu alayhi wasallam meel kale gedisan oo fara badan bay kaga sugan tahay oo tawaatur macnawiga gaaraysa xadiidka qaybtiisa tawaaturka macnawiga la yiraahdo waxa kale oo ka sugan nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu ka xishoodaa adoonkiisu markuu gacmaha u taagto inuu gacmihiiyo maran ku soo celiyo Allah waa ka xishoodaa marka asbaabta ducada lagu aqbalay kamid tahay inaad gacmaha taagato gacmaha hoorsato taasi marka wax weeyaan waa banaanta laakiin markii gacmaha aad hoorsato ducadaada aad dhamaysato inaad wajiga ku masaxdo waad ismarmariso midaasi daliil male بعض الآثار باجرته لكن ما قارسيسنا هيري حجة نقطة مسألة لو دليشده سيداس دراديد ما سكنا ساس دراديد با وحو يري الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء وحو يري لا يفعله إلا أحمق يعني وجهك وكعمها الله مريم مرك دعاء كذب نين نعس با سميه بوري نين نعس بمعنى وحو تلمامي إني سنة حديثتك صارت السكنين عمرك إن وجهك مصحده وما باهنا إيه واد سكتي واد سككحو maxaad wajiga kaga dooratay xubnahaaga kale ma isweydiisay adig ma gacmaha marmaris iyo luga marka masaladaasi mas'ala sallama aha masalad yaani waxa weeye daliil rasmi ah ma wallahu a'lam jazakallahu khayran sheekh gabadhan saylada waxay leedahay sheekhow waxaan doonayaa inaan i'tikaafo waxaan ka baqayaa inuu iga jabo
si uusan iga jabin ma isticmaali karaa kaniiniga dhiigga joojiya si aan u ictikaafo? masaladaasi ku saabsan dumarku ma isticmaali karaan maadooyinka caadada dibdhiga si ayna cibaadadu uga kala go'in, xajkoo kale, ramadaankoo kale, waa mas'alo horeysay oo laga yaabo inaad la yaabtaanba xataa xilliga ay culimmadu ka hadleen, xilli aada u horreysay waa ahar baa soo arooray cabdillaahi ibnu cumar waa saxaabi arrintaa isagoo ka hadlaya oo leh dhib ma leh, laakiin waa daciif aharka cabdillahi ibnu cumar. waxayse ka sugan tahay cataa ibnu abi rabaax oo taabici ahaa, cabdullaahi ibnu cabbaas arday uu ahaa. ilaa waagaa waxaa jiray maadooyin la isticmaalo oo dumarku isticmaalaan oo caadada dibdhiga, ilaa waqtigaasay marka culimmadu ka hadleen. waa ardadii saxaabada waqtigooda. culimmadeenna mucaasiriinta hadda joogta iyaguna way ka hadleen, waxay leeyihiin laa ba'sa, yacni wax dhiba male bay leeyihiin, dumarku way isticmaali karaan, allahuma haddii dhanka caafimaadka ayna dhibaato la imaanayn. taana waxaa la weydiinayaa ahluikhtisaaska, dhakhaatiirta iyo rijaalul muxuu ahaayey caafimaadka ayaa la warsanayaa oo la talo la weydiinayaa maadada dhiigga lagu dibdhigayo amay jidhka caafimaadkiisa dhib u geysanaysa. hadday jidhka caafimaadkiisa dhibaato u geysanaysa markaa lama ogola. haddayna jidhka caafimaadkiisa dhibaato u geysanayn way isticmaali karaan, yacni caadadiina waa ku dibdhigi karaan si ay cibaadada u dhammaystaan. wallahu aclam. farsaa'ilkan wuxuu leeyahay maa xukmu man taraka sawma camdan? ruuxa soonka kas uga taga xukunkiisu muxuu yahay? cadaab buu qarka u saaran yahay, khatar buu ku jiraa. leanna xadiidka nebiga sal alla alay wasalam siduu tilmaamaya xadiid abu umaama wuxuu yidhi nebiga sal alla alay wasalam anigoo maalin maalmaha ka mida jooga ayaa waxaa ii yimid buu hi laba nin oo nebigaa dhahaya sal alla alay wasalam. markaasay labada cududood i qabteen, way i kaxeeyeen, waxay ii geeyeen buur dheer, markaasay waxay yidhaheen buurtan fuul. markaasaan idhi war ma fuuli karo, war annagaa ku kaalmaynayna ku badhigantaalayno, yacni fuul baa la yidhi. buurtii baan fuulay buuhi. buurta korkeedii markaan joogo baan waxaan maqlay buuhi sawaxan iyo qaylo iyo cabaad iyo calaacal iyo wax isku daraysa. markaasaa waxaan idhi war waxan maxay ahaayeen? markaasaa waxaa la yidhi uhi haadaa cawaa'u ahli nnaar, waa dadkii naarta ku jiray qayladoodii iyo sawaxankoodii waa calaacalkoodii. waa ka soconnay buu yidhi, waxaan u imid buu yidhi haddana way ii keeneen dad inta boqonta laga xidhay lugta oo kor lagu xidhay, madaxoodii hoos u laalaaday, qowlalada afkana la dildilaaciyey. marka qowlaladii afka waxaa ka daadanaya carun iyo dhiig iyo qashin baa ka socda, korna waa u xidhan yihi, madaxoodiina hoos buu laalaaday. markaasaa waxaan yidhi buuri kuwani maxay ahaayeen? waxaa la yidhi buuri kuwani waa kuwii afuri jiray iyadoon la gaadhin xilliga afurka. u fiirsada, kuwii soon ka tegi jiray maaha, ra'sanba kuwii isaga tegi jiray maaha, waa kuwii soomi jiray laakiin soomkii xilliga afurkoon la gaadhin afuri jiray. ayib kii hadduu saas u cadaabaya midaan kuba soo leexanin ka war ya laa shaka kaasi islaamnimadiisa tiirarkeedii mid ka mida dunsan, waana caasi dembiile ah. bacdu ahlilcilmina waxay qabaan inuuba gaaloobi. riwaaya can imaam axmed waay, riwaaya can imaam axmed caleyh raxmat ullah ayaa wuxuu leeyahay waa gaaloobaya, taariku sawm kaafir buu leeyahay. inkastoo riwaayada xooga badani ee ka sugan uu leeyahay ee xooga badan uu leeyahay mee waa muslim caasi, maadaama uu tukanayo haddana riwaaya jirta leeh uu gaaloobaya. marka waa halis soonka in laga taga maaha, waa in la ilaaliyo. waaba ku fiicannaysaan is leeyahay soomaalidu salaada iyo soonka, salaaday dayacid badan tahay soo ma?
حتى يعني إلى أكتن عادة كالنقطة ونينك صلاة كتجا لما نيابيج لكن نين مال رمضان وعناه وركازي وكافر بالله بالله هو كافر بالله مكاسا ضرار رمضان بابا وحنا هيبي أنا أركه هيكاس لكن صلاة هدو كتجو حوجا يعني سيهر كأن لما قارد سيسني إن أركان الحفظية ولا جمار ما والله أعلم. جزاك الله خيرا. شغلنا سائلكم وحولي هاي ديكم من النجاس بهدوسة إيجا قد تدرك إيجا ما كنت كنكرا. ديجا شركة كيما دبني آدم كه علماء بدن كود وحي قبان إنه نجاسية. واسي مسألة خلافية وقاربة وحي ليه نجاسة معها. احتياطكم وحكو شراء أدو مرة هذا قارو يهدو شركة قارو إن لسكرقه. لأنه واسطة علماء أبدينهن ولو مسألة اجتهادية خلاف كتيره علماء قار كم من نود للشنا يعني حديث كي أبو داود يكوي نيكي الصحابي هاي يسوي ديكو كذا هذا يسكتوا كنيه الصحابة صدق الآثار البخاري كاني ويجوا مريه هذه يشكوا ديكو كي عليه تكنشرين علماء وحي قار كم من ليهن ديكا سنيشة سماها لكن وحي أبدينهن إنه نجاسية هساس ترادد وإن لسك نقاهبون خروجا من الخلاف واحتياطا للدين والله أعلم. جزاك الله خيرا. سائلكم حولي شيخ سليم السلام إلى الرياء. والسؤال مهمة سين السجا إلى الرياء واستستسك إن عمل كاجي واحد سمين يسوع نيدو كهالون وإلهي درتي هذا نصمين وأدنى كلا هل لو مقلو لقاش شيء هل لو أمانو هذا يسوق الشو وحديث كي نبي الله تبارك وتعالى أولها أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا وحنا هاي متكب مارمو ككافتوما وحياله لو وداقو من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه روحي عمل صمية عمل كان أني عدك لكد حيثية عنه إساق يوحي وذا شركي جيسي وكتغيه كما ترانو ساستراديد عملكو ميلها أوردنتو أيا وحا كمدا إن إخلاص وايو شيطان كنا ميلها ugu khatarsan bini aadamku ka soo galay kamid marka hore wuxuu isku dayaa inuu amalkii cibaadada dhanba ku garmariyo inaadan soo baleexanin buu isku dayaa hadaad ka rayso oo ka adkaato oo aad amalkii gasho ka hari maayo waa ku soo galaya markaas wuxuu isku dayaa inuu niyadaada haleeyo kharibo markaas wuxuu ku leeyahay muxuu ahay maarta dana kaliya masaalix kale ku soo galinay marka mar walba inaad la dagaalanto u baahan yahay oo ku dadaasho amalkaaga inaad ilaahay darsi ka dhigto tabaaraka wa taala maxaa kuugu kaalmeyn kara waxa kuugu kaalmeyn kara amalkaagu inuu ikhlaas iyo alle dartii noqdo waxyaalaha kuugu kaalmeyn kara waxa kamida in aad mar walba fiiriso cid aad hor taagan tahay cadamadiisa iyo cid aad istusayso xaqirnaantiisa sooma cid aad istusayso waa makhluuq bini aadan oo liita cid aad hor taagan tahay amalkan aad wax kaga rabtana waa allah kownkan abuurtay sooma yaani mujarrad qalbigaaga ay gasho waxan kada ku ag fadhiyo ee istusaysaay waa wax yar yar oo wax qiimo leh ma bahaba wax laga raadsado ma marka qalbigaaga yaani wuxuu u baahan yahay inaad shaqo ka qabato mucaalajayso waana hawl adag salafku waxay dhihi jireen ridwaanullaahi calayhim shay aanu isku dayno mucaalajayno shaqo ka qabanno niyada noogu adkaatay niyada iyo qasadka qalbiga noogu adkaaday marka waa arin shaqo adag u baahan allah tabaaraka wa taala amalkaaga inaad u khaalis yeesho adoomada inaad isaga jeesato waxa aad ka helaysaa adoonkan miskiinka ah inaad fiiriso qiimo darradiisa inaad allah tabaaraka wa taala jaliilka afiiriso waxa aad ka rabto inaad fiiriso khasaaraha ku soo gaadhaya in qalbigaaga xagga rabbi kaliya u jeediso arimahaas oo dhan ba insha Allah taala kuugu kaalmeynaya wallahu a'lam. jazakallahu khairan. sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay assalaamu alaykum maalin soon ah ayaan la kulmay xaaskayga
anoo halmaansan laakiin xaasku way ogeyd wayna ii aamustay oo iima sheegin marka ayadii ogeyd maxaa ku waajibaya adigana maxaa kugu waajibahay male gabadha masaladeedu soo raadinaya isaga tiisiina waa halmaamay ninkaas isaga aan ku bilaabe maadaama isagu gabadha ka bilaabay isagaan ka bilaabay isaga ishalmaamay ee xaaskiisa u galmooday isagoo ishalmaansan culimada qaar ka mida waxay leeyihiin sida cunidda iyo cabbitaankay la mid tahay oo soonkiisa wuu wadanayaa qiyaasan cala alطacaami waasharaab iyo sidoo kale qaacidadii kulliga ahayd oo halmaanka ilaahay ummaddan uma qabto rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiinaa aw akhta'naa alla wuxuu yidhi kamaa fii saxiixi muslim qad facaltu waan yeelay allow halmaan ha noo qabanin ismootiisna ha noo qabanin alla wuxuu yidhi waan idinka yeelay taa iyada marka sidaa culimmada qaar baa marinaya waana sida xoogga badan waaye halmaan shaygii soonka jebinayay hadduu ruuxu u sameeyo noocuu dooniba ha noqdo ruuxaasi soonku ka jabi maayo saasaa masalada ugu xoog badan tan kale iyo xaaska u aamustay ayadu marna waa dembiile marna soonkii uu ka jabay laakiin maxaa ku laasimaya culimada qaar ka mida waxay leeyihiin kafaaradii baa ku laasimaysa waa sida bacdu ahlicilmi ay qabaan hadday tahay daakiro tahay mutaawicana tahay mutaawica waa haddaan la qasbin waayo yacni hadday xusuusan tahay isla markaana uusan qasbin oo barnaamijkaba iyadu wadatay ama ay wax ka waday markaa isaga ah kafaaradii waa lagu leeyahay bay culimmada qaar qabaan oo in ay qoor xorayso ramadaanku markuu baxo hadday qoorta weydo hadda lama mahele ramadaanku markuu baxo 2 bilood oo isku xiga inay soonto hadday kari weydo in 60 miskiin ay quudiso maalinkii ay jabisayna waa inay qallayso isagana hawl adag baa markaa ku furanta intaa waxaa u dheer inay ilaahay dambi dhaaf weydiisato ee toobad keento ya waxoogaagii yarka ahaa ee isaga dhanba sakanada ahaa baa waxaasoo culaysa ka dhashay ya marka iyadu khaladkay gashay laakiin asagu waa naasiyo waa macduur wallahu aclam sheekh saciidkan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum sheekh waxaan ku noolahay waddanka USA waxaan wadaa baabuurta waaweyn traaga inta badanna waan ka maqanahay guriga waana shaqo joogto ah in badanna waan waday soonka ma afuri karaa buu leeyahay ruuxa musaafirka ee socotada ilaahay rukhsuu siiyey waa iska afuri karaa في القرآن الكريم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر روحي صوما أما حنون سنيا اسكا أفرو مع المكة لها قليو سفر كاغو هدو جوكتي هي يهدو مرمريا هي واسكمت لأن مناطق حكم كميشو كحرية وسفر ساس درادي دسك سفر رضا جوكتي دا أبدا ama taraagiyada kaxeeya ama basaska kaxeeya ama bayloodyada mesela diyaaradaha wada joogtada ee safarta ku jira ruqsa haystaan waa iska afuri karaan xilligii jaani salaam bay qalaynayaan taas weeyaan waana soomi karaan waa haday safarta ku soomaana waa sax allahumma inuu dhibayo mooyee hadduu soonku safarka kugu dhibayo marka inaad afurto waa oo markaa waxa noqonaysaa qoladii nabiga sallallahu alayhi wasallam ليس من البر الصيام في السفر يعني وناجا كمد معها سفرت دحديده ان لوو صومو حديثku wuxuu ku yimid qolo soontay oo soonkii ku rafaaday isla xadiidkii kale fi sahih muslim qoliyo sidaas oo kale saxaabada kamid ah oo soomay oo rafaaday ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ulaa'ika al-usaa kuwaasi waa caasiyiin marka hadii ramadaanka safar adoo asoonku ku dhibayo ruqsada qaado
maxaa yeelay ilaahay wuxuu jecel yahay sida uu jecel yahay in casiimada la qaato waa waajibka asalka ah ayuu u jecel yahay in ruqsadan la qaato marka ruqsada haddaad xilligeedii iyo sababkeedii aad hesho fududaynta shareecada qaado hadduuna soonku ku dhibaynin safarna aad tahay caadi u soomi karto inaad iska afurtana waad heli kartaa inaad soontana waad heli kartaa in shi'ta fasum wain shi'ta faaftir waa kii nebigu ku yidhi sal lla alay sl saxaabika haddaad rabtana soon haddaad rabtana iska afur nebiguna sal alla alay wasalam safaradiisa qaar ka mida inuu soomanaa waa sugan tahay saxaabada qaar ka mida marka hadduusan ku dhibaynin waa iska soomi kartaa wallahu aclam hadduu ku dhibayana iska afur jazaaka allahu khayran sheekhana saa-iilkan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu samankan jahli ruuxa ma loogu cudurdaari karaa hadduusan ahayn qof markaa soo islaamay ama qof sabi ah zaman aan jahli iyo meeli uu ka jiro aan la helaynin ma jirto zaman kasta waxaa jira meel cilmigu ku yaryahay oo culimmadu ku yarta oo aqoontu ku yarta iyo dad jahligu ku badan yahay aqoontuna ku yarta xilli walba waa la helaya sidaas daraaddeed ruuxa la leeyahay jahli ma loogu cudurdaarayaa duruuftiisa khaaskaa baa la fiirinayaa meeshuu joogo duruuftiisa wax la camimi karoo la dhihi karo zamankan jahli laysuguma cudurdaari karo wax ka jira ma laha leanna wax weeyaan zamankii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyo saxaabadiisii oo waxyigii degayo oo nebiga la joogaan ba marar fara badan waxaa ka dhacayay arrimo aqoon darra keenaysa oo loo cudurdaarayay cilmigoo faafsanoo sidan ka badan ayaa haddana dadku jahli ku dhacayeen ama jahli sababtiisa ay ugu dhacayeen oo loo cudurdaarayay marka way kala daran tahay mooyaane laakiin mar walba waa jiraa duruufahaasi khaasatan haddoo kale hadda nin kale hadda cilmigii waa faafay oo meel walba waa gaadhay sidaas daraaddeed jahli laysugu cudurdaari maayo ninkaasi waaqicuu ka dhacsan yahay ummadduusan ka warhayninba magaalooyinka midda cilmiga ugu fara badan uu ka jiro aqoonta ugu badan culimmada ugu badan joogaan muxuu ahaayey haddaad gaadho darfaheeda xaafadaheeda haddaad qaar ka mida tagto jahli mutbaqa ka jira jahli mutbiqa ayaa ka jira marka masaladaasi masalo yani sidaa loo itlaaqi kara ma aha arrimaha noocaas oo kale ana haddii laga hadlayo dadka ehelka u ah waa dadka sicatul itilaac leh ummadda ka warhaya waaqicooda ogsoon ninuun iska xamaasaysanoo qiiraysanuun hadduu iska yidhaahdo maanta jahli laysugu cudurdaari maayo wadaaba shalay jaahilahay ya nin baa siduu saa ugu hayay uu maalintii dambe masalo dhex fadhiistay masalo khatar ah ayuu dhex fadhiistay markaasaa lagu qabsadoo le sheekh soodiga gaalnimada dhex fadhiya markaasuu yidhi markaan tii hore lahaa jaahil baan ahaa oo soodigu yidhi jahliba laysugu cudurdaari maayo ya soo la jiifiyaana bannaan maha anugu markaan ku dhacana jaahil baana ummadda kale markay ku dhacdana cudurdaar ma leh adeer baasu jeebkaaga kuma jirta waayo markaas masalo kaleeto weeyo marka ay culimmadu leeyihiin man nasha'a bibaadiyatin baciida aw qariib alislaam ruuxa ma islaamnimadiisu dhowdah mar dhow soo islaamay ama ma ahe baadiye ka fog magaalooyinka ku barbaaray dadka qaar baa waxay kaga dhegtay adeer baadiye ma ku kortay kelimatulbaadiyay qabsadeen jahligii aqoon darrada jirta iyo nusuusta culimmada meesha khaldanee la dhigahay masaladu masale baadiye maaha mas'aladu wax weeyaan xilliga culimmadu hadlayaan oo hadalladaa ay itlaaqayaan ayaa magaalooyinka cilmigu faafsanaa jahliguna baadiyuhu yaallay ayib haddii magaalooyinkii jahli yimaado ka warran ma adugu ma baadiye umaad ku dheganaani mise muhimaddu waxay ahayd meeshaa cilmi ma yaallo aahaartii sunnaduna waa ka baaba'day magaalooyinkii hadday sidii baadiyahoo kale noqdaan waa la mid xukumkii meesha unbuu soo gelay lianna alxukmu yaduuru maca alcilla ya wujuudan wa cadama meeshii laga waayo cilmigii ama baadiye ha noqdo ama magaalo ha noqdo dadku waa loo cudurdaari ilaa wax la baro wax loo sheego wax ay jaahil ka noqdeen wuxuu dooniba ha noqdo wallahu aclam
jazaaka allahu khayran sheekhana saa'ilkan wuxuu leeyahay waxaan la deganahay gabar agoon haysata maalin dhoweyd baan iri biyo isii markaasay waxay isiisay biyaha halka litir oo xidhan kadib markaan cabay baan walaacay oo waa xoolo agoon baan isiri balse caagadda lacagteeda ayaan wax u dhigantaan ugu iibiyey ciyaalkeeda sidaas ma iga gudmi kartaa xoolaha agoonta masaladii hadda aan ka hadlaynay intaana tan dambe u gudbin waa waxaan xusuustay xadiidkii sunanka ku yimid mucaad ibnu jabal radia allahu tacaala canhu ardaa mucaad ibnu jabal waa ninkuu nabigu yidhi sal lla alay wasalam aclamu nnaasi bilxalaali waalxaraam waa ninka dadka ugu yaqaanay xalaashiya xaaraantu ah waa ninkuu nabigu yidhi sal lla alay wasalam culimmada ummaddani markay kulmaan mucaad meel saruu saaran yahay in aqoontiisu aada u sarraysu ah ninkii nooca ahaa ayaa wuxuu tegey shaam markuu tegey wuxuu u tegey nimankii gaalada ahaa ee madaxda ahaa oo dadkoodiiyo raciyadooda u sujuudayaan waa soo laabtay nebigu u yimi sal alla alay wasalam markaasuu sujuud la dhacay ya nebigu u sujuuday war mucaadow see wax u jiraan see wax gaayiin waa aclamu nnaasi bilxalaali waalxaraam markaasuu rasuul ilaahi kuwa aan soo arkay oo loo sujuudahayo adaa ka mudan in laguu sujuudo walaaduu sidhe soo masaladu kama qarsoomin markaasuu nebigu u saxay sal alla alay wasalam oo yidhi ilaahay keliyaa loo sujuudaa haddii cid u sujuudi lahayd dumarka ayaan amri lahaa raggooda inay sujuudaan laakiin ilaahay keliyaa loo sujuudaa soo ma u fiirso yacni aclamu nnaasi bilxalaal waalxaraam shubha ku dhalatay masale muhimaa ka qarsoontay nebiguna waa u cudur daaray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ya ninka marka waxa weeyaan kaarhka gaalaysiintaa la ordahayeelo soomaali maanta cilmigii waa gaadhay saas daraaddeed wax cudurdaara ma leh oo darajadii mucaad miyay gaadhay soomaali maanta yacni waxa weeye masaa-ishaas marar badan waxaan leenahay ha loo noqdo usuushii salafkii ahlu sunnaha oo yaan lagu fududaanin meelahaasi waa meelaha ay dadka ummadda dhiiggooda bannaysta ama gaalaysiiya iridaha ay ka soo galaan oo ay u maraan muxuu ahaay qaradkoodii ujeeddadooday ka mid tahay aada looga taxadaro arrimaha noocaas oo kale ah su-aasha xigta maxay ahayd nin la degan gabadh ilmo agoon haysata nin baa wuxuu leeyahay waxaan la deganaya gabadh agoon haysata maalin dhaweyd baan ribiye waan gartay ninkaasi khayr allah siiyo uu ku baraarugsan yahay agoonta xoolahooda inaan la cuni karin waana sidaasi si lagu cuni karaayo ma jiraan haddii maamada ku siisay biyaha ee agoonley ahayd waxay ahayd inaad weydiiso oo tidhaahdo xoolahan biyahani ma agoonta xoolahoodii baa mise ilaan iyada lafteedaa laga yaaba inay xoolo leedahay soo ma ama waxaa dhici kartaba in lagu sadaqaystay marka taa iyada ah saamayn ma xilligaasay ahayd in la hubsano haddii uu hubsan waayey gadaal inuu ka weydiiyana uu meeli kale oo uu yidhaahdo muxuu ahaayey uu yidhaahdo gadaal ka weydiiyo ka hubsado haddii uu ixtiyaad iyo dadaal sameeyey oo biyihii intuu cabbay kadibna uu carruurtii siiyey waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan waxba loo haysan wallahu aclam jazaaka allahu khayran wuxuu leey sheekh saa'ilkan assalaamu calaykum sheekh waxaan la deganahay dhallinyarta mid ka mid ah ma tukado salaada subax waan kicinaa laakiin ma tukanayo marka sheekh qofkaas oo kale guriga ma la deganaan karaa shukran ruuxa hadduu tukado salaadaha hadduu tukado oo laga yaabo salaad iyo wax saas oo kalea inay yaro gafgafto ruuxaasi waa gaal lama dhigi karo waa ruux muslima laakiin caasinima hayso sidaas daraaddeed baraarujiya oo u naseexeeya oo ha ka daba hadhina masalada isla deganaanta iyo la saaxiibiddu dabcan saamaynteeday leedahay oo nabigeennu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam almar-u
calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil ruuxu saaxiibkii ayuu la diin yahay oo dhaqanka iyo diin xumada waa kugu saamaynaya ee ruux walba ha ka fiirsado buu nabi sal lla lay wasalam cidda uu la saaxiibayo marka haddii uu diin xumadu ay heerkaa ka gaadhay inuu salaaddii ka seexdo uusan danaynin inaad la joogto ood la seexato ood la saaxiibto oo sax maaha in adiga laftaadu ku saamayn karaa u naseexe wax u sheeg laakiin saaxiib ka raadso daris kale ka raadso dad kale ood la joogto ka raadso soomaalit asagana naseexada ha kala daalan oo u naseexo si kasta hadduu ruuxu caasi u yahay oo si kasta u khalad badan yaho u fog yahay ee naseexuu kugu leeyahay jariir bn cabdillaahi albajali waa kii lahaa fii saxiixi muslim nebiga waxaan beeca kula galay salaada toosinteeda sakada bixinteeda iyo ruux kastaoo muslima inaanu naseexeeyo yani waxa way halkaasaa la gaadhsiiyey naseexada addiinu nasiixa waayo xadiidkii tamiim iddaari marka u naseexeeya u caqli celiya oo lacalla inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku anfaco waxaaba iska dhici kartaba inuu yahay sida dadka qaarkoodba nin iska hurda weyno oo hurdada dhibaato ku qaba oo yani waxa weeye dadka qaar baa saa iska oho baasha culays wax badan laga siiy hurdada culays badan ku hayso marka nooc cudurdaaray yeelan karaan dadkaas sida xadiidkii nabigeenna sal lla alay waslam ninkii saxaabiga ahaa ee xaaskiisu ay nabiga uga soo dacwootay waxay ku tiri rasuul ilaahay ow ninkaygu 3 arrimood bay ku dacwaysay horta salaad subax uu ka seexdaa oo barqinkiibuu tukadaa waa midda labaada wuu igaraacaa waa midda saddexaad soonku iga jabiyaa saddexaasay ku dacwaysay waa loo yeedhay war waxaan ma jiraan waa jiraanba rasuul ilaahay saddexduba waa jiraan oo maxaa dhaca wuxuu yidhi waa runteedoo horta salaadii subax waan ka seexdaayoo barqinkii un baan tukadaa sababtuna wuxuu yidhi reer waxaan ka dhashay hurdo weyn sidanadaba barqinkii un baan kacnaa marka nebigu sal lla alay slam wuxuu ku yidhi xilligaa kacda tukaa leyd tii kalena wuxuu yidhi gabadha waa runteed waan garaacaa buui laakiin waxaan ku garaacaa buu yidhi suurado qur-aanka aan ka aqaanoon akhristo bay iga akhrisataa marka waxaan ka kari waayey naa suuradahayga iiddaa baan ka kari waayey markaasaa nebigu sal alla alay slam wuxuu yidhi war adigii iyadaba way idinku filan tahay qur-aanku gabadha daa baa la yidhaha garaaci tii saddexaydna wuxuu yidhi soonkaan ka jabiya waa sax maxaa yidhi nin dhallinyaraa baan ahay iyaduna waxay samaysaa way iska soontaa soon sunnaa bay iska soontaa maalintii baan guriga joogaa waa u baahanahay marka anigoo u baahan bay sooman tahay saas daraaddeed waa ka dulboodaya soonkana waa ka jabinayaa taa iyada isagaa lagu garsiiyeyoo nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay slam waa meeshay ku imaanaysa xadiidka dhahaya haweeney uma bannaana inay soonto ayadoo ninkeedii joogo soon sunnaa inay soonto ilaa idankiisa mooye inuu u fasaxo mooyaane inay iska soonto maya marka yani meeshaa waxaa ka muuqata nebigu sal alla alay wasalam hurdaweynanka inuu meeshaa cudurdaar nebigu ka bixiyo sal alla alay waslam yacni wax lagu kalax tegi kara ma oo la dhigi karo nin kastoo hurdo weyn ha iska jiifa maa laakiin waxaa dhici karta oo suroobi karta ruuxaasi inuu yani noocaasoo kale yahay waxay dooniba ha noqotee una naseexeeya muxuu ahaayey xaggiisana wixii idinkaga imaan lahaa iska ilaaliyo ka taxadara wallahu aclam inta aadaanku ka dhiman yahay cuntada ma sii wadi karaa suxuurta xadiid khaasa masaladaa ku soo arooray asalku waxa weeyaan aadaanka dambe in suxuurta lagu joojiyaa asal ah waana aayadda qur-aanka macna ay ku tusayso wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr ilaahay kala caddaadaan labada liilan kala caddaantooda inaad arkayso iyo in aadaanka aad ku garata labaduba waay saas daraaddeed baa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam aadaanka bilaal yuusan cuntada idiin diidin laakiin ilaa uu ka aadaamo ibnu ummi maktuum nin indhalaa buu ahaa wa kaana laa yu'adinu xataa yuqaala lahu qad asbaxta
warwaagi waa bari ilaa lagu yidhaahdo muusan aadaami jirin marka ninkaas aadaanka dambe aadaami jiray aadaankiisana cuntada lagu joojin jiray asalku waa saas laakiin xaalad naadira xadiid ku soo aroortay xadiidkaasi waa xadiidka cinda ahlu sunan ku yimid ee nabigu sallallahu alayhi wasallam ida sami'a ahadukum an-nidaa wal-inaa'u fi yadihi fala yad'ahu hatta yaqdi haajatahu minhu midkiin haddii uu aadaanka maqlo isagoo weelkii gacantiisa ku jiro weelkaa gacantiisa ku jira yuusan dhigin ilaa uu xaajadiisa ka guto marka maxaa la yidhi wal-inaa'u fii yadihi weelku waa inuu gacantaada ku jiro ya cuntadii waa inay gacantaada ku jirto ama weelkaad cabbaysa waa inuu gacantaada ku jiro mid xagga yaallo ood raadsan doontood soo qaadanayso maya mid jikada laga soo wado lasoo diyaarinayana maya waa midaad bilowdo oo dhexda kuu jooga waay gacantaadana ku jira kaasi aadaanka intaan la dhammayninba waad kala tuuri kartaa soo maha sidaas daraaddeed waa xaalad khaasa oo nusuusta caamka ah yuu khasisayaa baa laleeyahay xaaladaasi waxaa xoojinaya ahar kaleeto isagana yani xoojin karaya culimada qaar ka mid ah ay leeyihin isaga laftiisu waa xasan oo cumar ibn khataab radiyallahu ta'ala anhu wardaah baa maalin la soo nabiga la suxuurtay sallallahu alayhi wasallam suxuurtii oo uu gacanta ku hayo ayaa lagu aadaamay cumar markaasuu rasuulullaahi ma iska dhiga maya xaajadaada ka gudu ku yidhi marka xadiiskan iyo labada xadiis iyo marka la isu geeyo waxay tilmaamayaan in xaaladda khaaska hadday ku qabsato ka gaadhsii laakiin wixii xaaladda aan ahayn raashiin la soo ridan iyo mid la soo qaadan iyo mid la soo wado iyo mid ku ag yaalla midna ma aha wal-inaa'u fii yadihi waa weel gacantaada ku jira wallahu aclam jazaak allahu khayran sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh matagu ma najaasa mise waa daahir mantaga masaa'ishii waagii hore buuqeedu taagnaa mantaga inuu nijaaso yahay waa say culimmadu u badan yihiin nijaasanimadkiisa waa sida loo badan yahay waxayna u daliishanayaan daliil khaasa ma laha oo aayad qur-aan iyo xadiid ma laha nijaasanimadiisa sheegaya laakiin waxay u daliishanayaan culimada badankood waxay leeyihiin waa shay caloosha gaadhay isagoo doorsoomayna soo noqday marka shay kastoo noocaasana waa nijaasay leeyihiin wax daliiloo khaas oo ku soo arooray ma jira nijaasanimadkiisa hal xadiid baa jira xadiid abu yaasir buu ahaa oo waxaa jira daciifa bal baatil ah alimaamu الnawowi iyo imaamu daaraqutni imaamu اlbayhaqi aimada xadiidka ee weliba shaaficiyada ah waxay leeyihiin xadiidkaasi wax jira ma ah waa xadiid baatiloon sugnayn halkaa xadiid baa jira isagana warkiisa lama hayo masaladaasi marka fuqahadu saa waa u badan yihiin inuu nijaaso yahay idinkii iska dhaqayo oo kaa qaadanayana ixtiyaadka qaadanayana laa ba'sa laakiin waa masale khilaafiya wey wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh allaha ku xifdiye haddaan aabbahay qur-aan u akhriyo ajirkiisa ma gaarayaa maxay aabba u akhriyo aabbahay haddaan qur-aan u akhriyo haa oo dhintay haa qur-aan mayd loo akhriyo waa masale iyaduna khilaafiye ah wax daliiloo khaasa looma hayo aayad qur-aan oo dhahaysa meydadka qur-aan u akhriya ma hayno xadiid nebi oo sheegaya meydka qur-aan ha loo akhriyana ma hayno intaa markii laga reebana saxaabadii iyo culimmadii waa isku khilaafeen yani culimmadu waa isku khilaafeen qaarka qaba in loo akhrin karo waxay leeyihiin oo uga qiyaas qaadanayaan acmaasha khayrkee sugnaatay ee daliil kale unbuu la mid yahay oo maxaa sugan oo daliil leh waxaa daliil leh sadaqada waxaa daliil leh ducada waxaa daliil leh xajka waxaa daliil leh cumrada kuwaasi in meydka laga samayn oo ay gaadhayaan oo loo samayn karo adilay leedahay marka waxay leeyihiin qur-aankuna wuxuu la mid yahay kuwa khayrkaa unbuu la mid yahay halkaasay mareen qolyaha dhahaya waa loo akhrin karaa
qoliyaha dhahayo looba akhrin karana waxay leeyihiin waxan waa cibaado daliil khaas ay u baahan tahay haddii uun loo akhrin karana nabigu waa sheegi lahaa sal alay wasalam nas baa ku imaan lahaa sida yani waxyaabaha kaleba nusuusta iyo adilada ugu timid ragga sidaa qaba waxaa ka mid a oon ogolayn oo dhahaya meydka qur-aan loo akhrin maayo waxaa ka mid a alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah waliyasmac dalika ashawaafic ya shaaficiyadu ha maqlaan soomaalidii shaaficiyada ahay imaamu shaafici ma qabo meyd qur-aan loo akhriyo ya marre iyo waxay dhihi jireen muxuu marre iyo qulwalayaashii faraha badnaa maxaa la dhihi jiray iyagana maarta kumanyaalka ahaa iyo fidamiyo wardu saalix meel dhahay isaga magacyada u baday uu kala duduwaya midba suurada khaasa la akhriyo marka masaladu iyadoo khilaafiyada hadana imaam shaafici alayhi raxmatullah wuxuu kamid yahay culimada qabta maya wuxuuna daliishanayaa wa an laysa lil insani illa ma sa'a ayadaas uu daliishanayaa almuhim waxa fiican sideedaba shaygu haduu yahay wax ka qarsoon oo aad wax ku rabto wax la hubo la qaataa wax la hubo waa la qaataa marba haduu muran galay daliil loo haynin waxaad uga leexataa wixii la hubo oo sadaqa ah ya oo xaj oo umra ah khayraadka kale oo ducada ah khayraadka kale nusuusta leh u leexo yada la huba tan muranku galay Soomaha ina iska diisaabo hadaad se ku qanacdo oo raayiga kale culimadu qabto waa loo akhrin karaa aad ku qanacdo ruuxu uu akhriyo dhimale waliba ragga qaba in loo akhrin karo oo uu gaadhayo waxa kamida Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamida Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ayaa kamida wuxuu leeyahay sida daacaadka kale ayuu la mid yahay oo quraanka waa loo akhrin karaa dadka dhintay marka hadaad raayiga ku qanacdo daliil ahaan ugu qanacdo ama culimadii aad ku qanacsantay ku weydiisa aad saaq ku yiraahdaan oo u akhrido dambi ma aha markaas ma gaadhay mise gaadhi ma waa mas'ala kale laakiin dambi ma noqonay wallahu a'lam jazakallahu khairan sheekh saailkan dhowr su'aal soo qoray su'aasha koowaad wuxuu leeyahay sheekh muxuu yahay xukunka cabitaanka Coca-Cola iyo Pepsi-ga su'aasha labaad haday jamaacada ku dhaafto kaliya ma tukanaysaa mise waxaad la tukanaysaa jamaaca kale su'aasha saddexaadna waa tii muxaadar laga dhigay xukunka qishka fil imtixaanaad muxuu yahay afiiduni fadakumullah su'aasha hore Coca-Cola iyo Pepsi Coca-Cola iyo Pepsi-ga cabitaankeeda maxaa ku jira maxaad ka dhex aragteen diga wale ajaib waa boodaysa andhuufay tuuraysa kula Sheekh Mandera masasa fatwadiina idin Mandera masasa laga fatwooda aba ku jira madha mas'aladaasi Coca-Cola iyo sharabaadka la cabo soodooyinka wixii aan wax khaas ah lagu ogeyn asalku waa xalaal wixii aan wax khaas ah lagu ogeyn maadadan ghazaadkay ku jirtay boodaysa cilo uma aha xaraamnimo cilo uma yaani waxa keeni lahaa xaraamnimada waxay ahayd inay wax sarqaamiso Soma sheekhi sarqaanka keeni lahaa laakiin boodboodidaasi dib ma laha iska boodbood yaani waa ghazaad waxa dhibana male hadii markaasi aan maadaday ka samaysantahay hadii aan wax lagu ogeyn ama ayna ka soo bixin wax shariicadu ayna ogoleyn oo xaraama salaadku sharaabiyada la cabon bay kamid naam su'aasha labaad wuxuu salaada jamaacada haday ku dhaafto tusalli wahdak am salaada jamaacada haday ku dhaafto masaajidka timaado ma kaliya baa tukan mise jamaacad la tukan hadad jamaaca heli karto la tukan hadad weydana kaliya tukan sala khilaafiya waa inda salaf ay ma badan ay leeyahay waa karaahisanayna oo sida ibn Taymiyyah waliba soo naqliyay Imam Shaafi'ina uu ku qoray kitaabkiisa ah jamaacada labaad ee masjidka raatibka leh jamaacada labaad waa karaahisanayna salafkuna waa karaahisan jiray bay dhahay jamaacada labaad
macnahaas culimada qaarba meel bay saareen oo qaar waxay yidhaahdeen dadka la karaahiyanayo jamaacadooda labaad waa dad caadaystay oo dhaqan ka dhigtay qaar waxay leeyihiin ma ahe waxa laga wadaa waa dad mucaarado iyo khilaaf wada oo imaamkan iyo salaadan dadka ay ku xidhanayaan bayba ku kacsan yihiin saas daraadeed bay gooni inay u tukadaan oo jamaaco kala samaystaan halka qoliyaha marinaya qoliyana waxay leeyihiin aslanba jamaacadii hore waxaan ahayn masaajidka jamaacaadkan dambe lama ogola waxaa iyada aan hadal ku jirin jamaacada ajirku ku soo arooray ee laga helayo ugu yaraan 25 ama 27 ajirka ee laga hadlayo waa jamaacada hore waa mid hore ee masaajidka ku tukanaysa waa kuwan dambe ma lagu tukan karaa sida mise laguma tukan karaa laga doodayaaba ya ma lagu tukan karaa mise lagu tukan ma ajirka jamaacadaas qaybsamo ajirka jamaacada laga helayo salaada jamaacadana waa noqdaa waxa kale uu noqdaa ruuxu soo socodka uu soo socdo masaajidka uu soo socdo ayadana waa ku jirtaa marka laba gooraba ajirkii jamaacada ee xadiista lagu sheegay waa jamaacada hore kuwan dambe ruuxu ma ku tuma u banaanta mise uma banaano waa aymadaasi waxay soo guuriyeen arinta iyada ah waxaa jira xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi maalmaha kamid ah soo masaajidka fadhiya ayaa nin baa salaad agtiisa ku galay markaasuu nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam rag saxaabadiisa oo ag joogay wariyaa ku sadaqaysta buu yiri kan wariyaa wax ku sadaqaysta nin baa istaagay oo la tukaday oo jamaaco u noqday yaa oo ku sadaqaysta halkaas ay culimada qaar kood ka qaadanayaan waxay leeyihiin jamaacadii hore oo tukatay buu ninkani yimid nabigaana sallallahu alayhi wa sallam nin kale yiri la tuko qoladii ra'yiga hore qabtay way ka doodayaan xadiiskana waxay leeyihiin waxii aan ka doodayna waxa way salaad farad lagu xidho laakiin tani waa salaad sunna oo salaad farad lagu xidho ma bahaba baabkan ka hadlaynayo adigu masaladu muran badan iyo dood badan baa ku jirtee laakiin adoo masaajid soo galo jamaaca tukanayso hadii aadan caadaysanin markaan aad furqiyo umada qaybinteeda u jeedin jamaacada la tuko jamaacada la tuko inaad isaga leexato aad meelahaaga kale isaga tukatana waad heli kartaa oo xadiis baa jira nabigeena sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamida ayaa salaadii baa laga hor tukaday awl buu ku soo daahay uu ku maqnaa waa laga hor tukaday isagii saxaabada qaar kamid salaadii oo laga baxay oo masaajidka laga dareerayo buu soo galay markuu arkay masaajidka oo laga sii baxayo ayuu iska laabtay guriyaha kamid ay tageen oo salaadooda ku tukaday masaajidkiiba waa kala leexdeen waa adilada loo dalishaday kamid tahay marka isku day inaad jamaacada hore soo haleesho hadaad haleeli weydo waa ra'yi culimada qaar kood qabaan inaad la tukato jamaacadaad hesho waa mas'ala khilaafiya way wallahu a'lam حكم الغش في الامتحانات حكم الغش في الامتحانات الغش في الامتحانات حكم الغش في الامتحانات وصو شيغني محاضرتي هوران ku sheegnay Soomaa imtixaanka dhaxdiisa inaad غش samayso waa xaraan sida uu leeyahay Sheikh Ibn Baz Sheikh Ibn Uthaymeen culimada sunnada kibaartoodu ay leeyihiin laana waxa weeye xadiidka nabigu markuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam man ghashana falaysa minna ma kala qaadin nabigu sallallahu alayhi wasallam ruuxi naqisha naga mid maaha shahaadadan imtixaanka aad ku galayso imtixaankan aad qishka ku galayso shahaadada aad ku qaadan doonto ya shahaadadaasi waa shahaada aad shaqo ku heli doonto Soomaa dariiqaad u soo martay waa dariiq khaldan shahaaduna waa shahaada beenaad Soomaa shaqadaada hadhowto waxa laga yaabaa saameyn inay ku yeelato haddii baabka la xidhi waayo oo qishka la fasaxo imtixaanaadka waxa soo baxaya berri dad shahaadooyin wata shahaadooyinka aqoonteedina aan lahayn dhakhaatiir waxa soo baxaya been ah markaasay dadka laynaya soo ma dhacayso tadabbub nin dhakhtar iska yeel ah baa soo baxayo shahaado been wato falsa wixii oo dhanba yaani qish ku soo maray ya oo mid waxa soo baxay engineer falso been ah markaasuu guriyaha inuu gudumin soo saasma guri dabaqyo been uu noo dhisaya umaduba ku dul fadhiisan maalinta dab sidaas daraadeed arintan yaani imtixaanaadka iyo shahaadaadku اعتبار علوس بيليده خاصة وقت كان هذا اللي تشوجه والروح أقونتي سيكتر جميسة شهادته معنى صاسوا امتحان كمان صومري سيسحان كصومري
aqoonta waan leeyahay saasuu shaqo ku helaya saasuu ummadda ugu khidmeynaya saasuu muxuu ahaa lagula mucaamaloonaya saas daraadeed qishka imtixaanaadku waa xaraan wixii sidaa kugu soo galana waa xaraan wallahu a'lam جزاك الله خيرا وقتي waxaan uga dhiman 10 daqiiqo insha Allah wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu alaykum salaam kadib hadii anigoo iska jiraya macnaha ka taxadaraya biyo kama igu tagaan soonka miyuu iga jabaya markaan weyse qaadanayo oo kale markaad weyse qaadanayso waxa la rabaa hadaad sooman tahay inaadan luqluqashada iyo sandaarsiga ku xeel dheeraanan xadiidkii laqiit ibn sabra inda ahli sunan wa kii nabigu sallallahu alayhi wasallam wabaligh fil istinshaq illa an takuna saa'iman sandaarsiga ku xeel dheero oo aad biyaha u jiid inaad sooman tahay mooyee hadaad sooman tahay biyaha sanka aad ugu jiidin luqluqashadana aad uga taxadar taxawaad luqluqan kartaa waxa ku tusay xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam nin baa nabigu wuxuu rasuulilaahi waxaaskayga ma dhunkan kara anoo sooman markaasuu ku yiri ka waran hadaa adoo sooman luqluqato hadimale buu hadda taabashada iyo dhunkashadu waa luqluqasho buu ya liqidiina waa hawsha dambe soo saasba marka luqluqashada iyo sandaarsiga iyo waa sax laakiin ha ku xeel dheeraan hadii aad samayso oo ay biyo kugu tagaan soonkii ma jabaya adoo taxadaraya oo ku tala gashanay haday kugu fakadaan ma jabay maxay xagay soo galaysaa la tu'akhidna in nasina aw akhtana bay soo galaysaa waa ku tala galaan sooma yani halmaanka iyo ku tala galaanta wixii kaaga dhacay isku baab waay inna allaha tajawaza li ummati عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه halmaanka iyo wixii ismoostis u dhaca iyo wixii lagu qasbo ummadayda ilaahay waa ka dhaafay wallahu a'lam جزاك الله خيرا شيخ سائلكم wuxuu leeyahay sheekh ilaahay dartii baan ku jeclahay Allah ku xifdiye hadii aan dhaho buu yiri gabadh iga ajnabi aan ku dhaho hadallo amaan ah sida qaaliyay sharafay quruxay iyo wixii la mid ah soonkayga muxuu u dhimayaa mise ma dambi ba shukran bismillahir rahmanir rahim haweeney ajnabi ka ah oo xaaskaagi ahayn oo hooyada aan ahayn oo maxram ku ahayn qaaliyay iyo sharafay maxaa ku galiyaaday ya iyo macaanay iyo goormaad ogaatay inay macaanta waa hadallo khalad way munaasib ma sooma yani hadallada noocaas oo kala waa hadallada fitnada iyo aafada abuuraya hadalladu waa kala yihiin hadallo waxa jira xaasaska loogu tala galay ya oo reerkaagu leeyahay waxa jira hadallo loogu tala galay waalidiinta iyo oo hadallo ixtiraam waxa jira hadallo loogu tala galay dadka ajnabiga ka ah hadallada noocaas oo kala ah waxay furayaan fitnay furayaan la dhanka in dumarka inay ka yimaadaan sax ma aha sida ilaahay dumarka markuu la hadlayo ku yiri fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad hadalka ha jilcinina dabcinina oo midka damacu ku jira iyo hungurigu uu marka damco midka qalbiga ka jiran ee qalbiga cudurka shahwadu ka hayo ayaa damac galaya wakadalika dumarku waa ka sii jilicsan yihiin rag sooma meesha la leeyahay dumarkii hadalka ha dabcinina si aan ragga hunguri u gelin ya ninkii haduu dabciye ka warantii ka qalbi jilicsanay awshu waa kharimaysa meeshana waa meesha laga taftaafay dhalinyaro fara badan oo isku kharibantay ya meeshaasay ka bilaabatay waxa culimadu yiraahdaan nadratun fabtisamatun faliqa'un ma famaw'idun faliqa marka ugu horeysa safiirka irida fura waa isha marka ugu horeysa irida furto aabooda iyada soo saamis markay ishu ay furto kadibna muusood iyo waxa ku jira ku xiga iyo qosol kadibna markii la isu muusoodo waxa ku xigta in la ballamo sooma kadibna kulankii baa ku jira
kadibna xaajadu qadhaadhaatay soo saas ma saas daraadeed hadalkan macsuulka ah waa nooc aafa ah diintuna ma ogola adoo sooman naag ajnabi ka dad warka ku tiraadana shaki ma laha inaad dambi gashay oo khalad gashay wabitaali soonkaaga saameyn bay ku yeelanaysaa ajirkaagii waxbaa go'aya waxbaa lagaala tagay wallahu a'lam jazaak allahu khayran sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh waan ku salaamay salaan kadib islaan aan furay hooyadeed gacanta ma ku salaami karaa su'aasha labaad islaan aan furay oo aan rabo inaan ku noqdo markhaati ma u baahanahay islaan aad furtay hooyadeed gacanta ma ku salaami kartaa jawaabtu waa yani islaanta sodohda ah waa mahram abadi awaa ama gabadheedii wada jooga ama kala taga abidkeed bay mahram ku tahay sidaas daraadeed gacantaad ku salaami mahram baad u tahay waad la safri xajkaad geyn umradaad geyn waa mahram weligeedba ma go'o mahramnimadeeda taasi waa midda labaad waa islaanta aan furay markaan ku noqonayo markhaati miyaan u baahanahay qur-aanka kariimka ilaahay wuxuu ku sheegay markhaati geliya ya markaad soo ceshanaysaan dumarka markhaati u sameeya amarka qur-aanku waa kaa laakiin ma laazim ba culimada in badan waxay qabaan laazima hadduu ninku reerka ku noqdo xaaska ku noqdo markhaatina uusan u samaynin way soo noqonaysaa bay leeyihiin oo waxay leeyihiin markhaati gelintu waa sunno ee waajib maaha ruknina maaha waa un sunno haddaad inaad samaysaa ay ahayd haddiise aad ka tagtay ku noqoshadii waa saxaysaa waana xaaskaaga intaa mid ka sii daran bayba samayna culimada in badan ay leeyihiin oo waxay leeyihiin haweentaadii aada furtay ilaan reerka marka aad kala tagtaan dalqada koobaad iyo talabaad haddii aad ku kala tagtaan wayna dalqadihii kaa dhammaanin inaad guriga wada joogtaan baa idiin bannaan sariirun baydaan ku wada seexanayn laakiin gurigaad wada joogaysaan weliba si laysu soo ceshado haweentu inay isqurqurxiso ninka hormarmartaa fiican ya oo muxuu ahaay ay ninka weyrixiso weyrix baa la dhahay in la weyrixiyo marka waxay leeyihiin xaaladda noocaas oo kale ah hadday dhacdo isaga oon afka kaga dhawaaqin soo ceshi inuu inta qalbiga ka niyoodo uu aayar uu maartay shaqadiisa qabsado oo uu galmoodo hadday dhacdo waxay leeyihiin niyada iyo galmada ficilka hadday isqabsadaan afkii isagoon kaga dhawaaqin uu soo ceshadayba وهو المذهب الصحيح يعني وحويا وأوجل موضي نيدي سنة كل نقية حاسك عجيوة سوء شيء السوء نفك كذا واقين بأوجل موضي قال ماذا سوء شيء بكرة كنت سيداس برادت يعني سيدا لو بدن هاي شرط معها مرخاتي قلنتو مربع دو قرسين يعني كينو سوء الشدي والله أعلم. سائل كان شيخ حلي هاي شيخه سؤال شيء وحوي قف ضمر أهو أنسو من بالرمضان أيا أسو قلي صونكي لباد يكنا مركا صونكي نقول بلودي كي هو رمحيك سمينيسا صون كان هالصونتو كان مركا يدوم يسنا كي هو حق الليس انت أمبالغ الربا في ديما اللازم يسا إمام الشافعي إمام أحمد وحيليهين فدية الراشين بالراعين يا لكن حاجة أدلة مركا الله فيريو وحنا الصملة راشين كاس يعني آثار بعض الصحابة شرت لكن دليل مرفوع يا حديث مله آيات إسكابده مركا سياس درادت قل على جربها مسألة اللي بعد رمضان ككلا إنه أصوغ قال يدو كيهور اللي يقول هاي هدي عذر دار أين لهين ويدو صومي كرتو قلين كرتي أيضا يعضي إلى رمضان كلا صوغ قالي هل كان الدم بباكر شيء توبة بالجربة هدي أي عذر دار لهاي سنة كوردن سيدا رمضان كلا كوسوق قال مركز الدم بماله قال له على الجربة هدينا عذر دار لهينا وحال الجربة توبنا ولا الجربة قال له هنا ولا الجربة والله أعلم. شخصين مقدم بسؤال كان يقول لي
حسين قال هذا وإلا sheekh xuseen wuxuu leeyahay tusbax waagii hore waa bidca la yidhiyo gadaal dambana mid reer magaala soo baxay oo lagu laabtay oo dadku faraha ugu jiro mishiin yar oo wax lagu tiriyo tusbax waa laba midka xaragada oo la isaga xaragoodo kaasi waxa weeyaan wax cibaada iyo shaqo kuma leh xariifiinta iyo rag xaragooda qaata laakiin tusbaxa cibaadada loola qastay ee marmarka qaar kood inta laga badbadiyo sida misxaf oo kale la gaarsiyo xataa dadka lagu dhaariyo tusbax baa dhulka loo dhigaa ka tilaabsan la dhax ma tilaabsan karo sooma yaani heerka markuu gaarsiisan yahay waa geed markaasi laga badbadiyo la gaarsiyo heerkiisa heerana asalahan dhikriga Allah tabaaraka wa taala marka tirinayso horta dhikri la tiriyo oo tira go'an leh oo 100 ka badan ma jiro sanada qabsada dhikriga 100 ka ana hal meel buu ku yimido yaani waxa kamida nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu maalinkii 100 goor buu istaghfar leysan jiray inta ugu badan ay soo aroortay waa 100 kaas wixii 100 ka badan hadaad ilaahay xusayso inaad tirisaba uma baahna ya Allah uu tirsantay adeer adiga iska wad ya kuwa waxa jira looguba tala galayba inay qoraan oo shaqo kale ba lahayn oo halkan ka saaran saasaraad adiga maxaa isugu lugeynba iska wad iyaga qoranahay ilaahay uu taala وامد أوليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه صحابي جليل كأها قالوا حصام مري وضفردوا ذكرك ترينيس سبحان الله دها تردس الحمد لله صوت تريا سبحان الله صوت تريا الله أكبر ترأم ولا مركز الحكومي وحنك لقرن الله إن الرد بدعفرتين إن النبي محمد الصحابة سك خير بدنتي بس الصحابة كخير بدنتي لا وضع كي تهيبان قرن مركز واحد أبو عبد الرحمن ومحمد مسألة أنه كل احتجيزه أنه خير بأنه تشيدنا معها الله إن مركز يقول إمسا خير دوني زون قارين هذا الخير بان رباكلية خير لكم أهله خير كمان تشيد كيسة مرتزوما مركز حكويري سيئات كينا يدم بيجينا تريا يا ضاعدا إنا ينضيع من أنا إدين بلنقاضة يه سيئات كي يدم بيجا تريا صوما وابن آدم كسيدا خير كو ترصدا لكن دم بيجا ما ترصدا صوصا اسمع مرك خير كان الله يقول ترسين هاي ميد الله ربا إناد كرنا قطي إناد ترسوا بها ودم بيجا مرك ضاعدا ذكرك ترنتيسا إلهي بأوتها الله وحي كسو أروري ترقو أن تري ومثلا وحاكم إذا صلاة مركان قبحانو سبحان الله صدني صدح قور الحمد لله صدني صدح قور الله أكبر صدني صدح قور يا لا إله إلا الله بقولك قدك وترقو أن صوما مركان ماشي ترى كسو أرورتي ترى دا كوكو ماشي أن ترى لهين شريعة وحي ترى لآن أردك تيبا مصلحة كتيرتي دا faraha ka qaado afka uun ka wad halka waxay ka saaraysaa shubha la yiraahdo dadka marka tiraahdo war nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiska Abu Daawud iyo wuxuu yiri faraha isticmaala yaani anamish xubnaha faraha isticmaala oo iyaga tikriga ku xuska ilaahay ku sameeya dumarka markuu la hadlay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa yeelay fa innahunna mustantaqat iyaga laga hadlinaya maalinta qiyaamada wuxuu ku leeyahay sheekh farahani waa ku wareerahayaayo ma keeni karo tirada yaa tirsa ku yiri waxaad ku wareereysaba in la tirin kara loogu tala galay intaasina faruhu waa ku filayn inta kale faraha badan Soomaa ha tirinina iska wad ilaahay u xisaabsanta saas daraadee tusbaxow meel malihid Soomaa mishiin yar oo la soo qaaday oo la wadayo meel malihid wax waraku ma yaal Soomaa tusbax markii la sii daba galo Soomaa warkiisu waa dheeraanay laakiin aan inta kaga hadhno aan iska dayno والله أعلم